wali waxaan ku jirnaa module 4 waxaana inoo dhiman qaybtii aan uga hadlaynay CV-yada ay diyaariyaan dadka freshka ah ee jaamacadaha marka dhow ka soo baxay. CV-yadaas way ka duwan yihiin dadkii khibradda lahaa ee hore aan u soo aragnay. waxaana iyaga looga baahan yahay si gaar ah inay isugu xisaabtamaan meelaha xoogga ay saarayaan gaar ahaan maadaama khibrad badan uu qofku lahayn tusaale ahaan waxbarashadiisii oo kale iyo percentage-ku uu jaamacadda uga soo baxay iyo xilliyadii jaamacadda uu joogay waxyaabihii uu ku fiicnaa ka qayb qaadashadii student unionka oo kale midowga ardayda jaamacaddaas oo kale wixii uu ka qabtay iyo waxyaabaha la midka ah. marka waxaan rabnaa inaan aragno tusaale dhammaystiran oo CV uu diyaariyey ama loo diyaariyey qof fresh oo jaamacadda hadda ka soo baxay oo ku soo qalin jabiyay gaar ahaan information technology. maadaama ardayda computer science ka baranaysa ay aad iyo aad waddanka u badan yihiin waxaan rabnaa in aan helno hal page oo dhammaystiran oo xoogga lagu saarayo qofkan meelaha ay tahay xoogga inuu saaro. laakiin waxaa jira waxyaabo fara badan oo ay tahay qofka inuu iska ilaaliyo gaar ahaan qoraallada uu qorayo meelaha xoogga uu saarayo meelaha ay tahay inuu ka hadlin gebigoodba. tusaalooyinkaas waxaa ka mid ah tusaale ahaan waxaan ku tusi doonaa qayb qalad ah iyo qayb sax ah oo isla iyadii ah. tusaale qalad ayuu noqon doonaa masalan qofka in uu yiraahdo kale qoraalkan soo socda entry level business analyst is skilled in business processing automation problem solving seeking a position with IB Soft. qofkan waxa uu xoogga saarayaa isagoo cusub inuu muujiyo inuu yahay qof entry level business analyst ah inuu muujiyo. qoraalka noocaas marka loo dhigo kale waxa meeshaas ka imaanaysa wax skill qofkan uu leeyahay ma jirin. fresh way haddu jaamacadii ka soo baxay laakiin haddana wuxuu sheegayaa inuu yahay qof skilled ah oo xirfad u leh business analyst dhinacaas marka laga eego. isla qoraalkaas qoraal ka munaasabsan waxa uu dhihi karaa qofka sida tan enthusiastic business analyst is skilled in leadership and communication seeking to enhance understanding key metric iyo wixii ka sii dambeeya. qofkaas marka xoogga muxuu saaray number 1 waxyaabaha noo muujiyo waxa kamid ah inuu yahay qof enthusiastic business analyst ah qof jecel inuu noqdo business analyst. ogoobay ma dhahayo qof skill ku leh xirfad tiro badan ku leh waayo goorma xirfadan yeelatay oo adigii cusba ay hadda jaamacadda ka soo baxay sida CV-ga ka muuqata hadhihin qoraalka noocaas oo kale ah adigoo raba dad inaad soo jiidatid ayaa laga yaabaa mararka qaarkood inaad adiga weysada iska jabisid oo aad iska sheegtid ama isku tilmaantid cid aan ahayn aan fiirinna mid kale. qofkan waxa uu rabaa inuu muujiyo inuu data analyst yahay oo aad iyo aad u fiican khibrad fiicanna leh laakiin waa qof fresh ah oo hadda soo baxay. hal mar ila fiiri data analyst experience qofka inuu leeyahay ayuu sheegaya I am fresh out of college with no experience in data analytics yet but I am driven to succeed. other experience waxa ka mid ah blogging iyo waiting table. maxaad ka fahmi kartaa qofka isaga marka waxaad dareemaysaa isagoo fresh ah inuu sheeganayo data analyst experience laakiin still wuxuu sheegaa inuu experience lahayn. isla isagii ayaa isjibinaya so don't do. khibradda aad sheeganaysid waa inay kaa muuqataa ama ugu yaraan aad soo bandhigi kartid haddii loo baahdo. isla hadalkaas hadal ka munaasabsan waxa uu noqon karaa sida tan freelance data analyst 2012 up to 2017 created a Python script using data analytics to rank tennis ATP players depending on player stats. Client rated the script extremely useful. iyo qoraal ka sii dambeeya. maxaa qofka ku muuqda marka number 2 waxa uu soo sheegay inuu yahay freelance data analyst. qof wuxuu ahaa caadi u shaqeynaya xirfad ma sheegan khibrad gaar ah ma sheegan laakiin muddo 5 sano ku dhawaada ayuu wuxuu ka soo shaqeynayay as a freelancer ayuu wuxuu u shaqeynayay inuu ahaa data analyst iyo shaqooyinka uu soo qabtay kaliya ayuu soo tahay. shaqooyinka uu taxo cajiibka markaad fiirisidoo kale waxa kamid ah inuu script hadda ka hor sameeyo waxa kamid ah in machine learning dhinacyadaasi uu ka soo shaqeeyo kale marka waa qof muujin kara daliilna u haya waxa uu sheeganayo si ka duwan qofkii hore oo runtii iska sheegtay wax uunan shaqo ku lahayn ama khibrad u lahayn isagoo rabay kaliya inuu soo jiito qofka CV-giisa akhrinaya. no good ma fiicno. marka aad iyo aad inaad tusaalooyinka inta isugu fiirisid isla qoraalada yareed ku dhex qoraysid meesha waxa ay saameyn weyn ku yeelan karaan negative iyo positive intuba aragtida uu ka qaadanayo qofka CV-gaaga fiirinaya.